Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa waxa ay isku dhaceen Shiinaha iyo Ruushka oo ay ku eedeeyeen inay ka hortageen tallaabo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka qaadi lahaa Kuuriyada Waqooyi taasi oo ku saabsaneyd gantaalada balistiga ee ay sii hormarinayso Pyongyang. 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa ku guuldareystay inay isku raacaan inay si wadajir ah u soo saaraan bayaan ay ku cambaareynayaan tijaabada gantaalada balistiga ee ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. taasi beddelkeedana dalal dhowr ah oo ay ku jiraan Faransiiska, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa si gaar ah u dhaleeceeyay tijaabooyinka gantaalada ee Pyongyang. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan samaysay tiradii tijaabo ee ugu badnayd ee gantaalada ridada ah oo uu ku jiro gantaalka balistiga ee qaaradaha isaga gudba, taasoo tirada guud ee gantaalada ay riday sanadkan ka dhigaysa in ka badan 60 sawaariikh. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in 13 ka mid ah 15 xubnood ee golaha ammaanka ay Kuuriyada Waqooyi ku cambaareeyeen tijaabooyinka sii kordhaya ee gantaalada balistiga tan iyo bilowga sanadkan, balse waxay sheegtay in Pyongyang ay ilaalinayaan laba dal oo aysan magacaabin laakiin loo fahmi og yahay inay uga jeeday Shiinaha iyo Ruushka. labadan dal waxa ay ka weecdeen inay caddeeyaan xadgudubyada soo noqnoqda ee cunaqabataynta qaramada midoobay ay ku sameynayso Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kuuriya, ayay tiri danjiraha Mareykanka. waxay awood siiyeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kuuriya waxaanay ku jeesjeeseen golahan, ayay sii raacisay. balse Shiinaha oo ah saaxiibka ugu dhow Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka oo uu xumaaday xiriirkiisa reer galbeedka duulaanka uu ku qaaday Ukraine dartiis, ayaa kulanka qaramada midoobay ka sheegay in xiisadda Mareykanka kala dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi uu isaga eedeeda leeyahay. safiirka Shiinaha ee qaramada midoobay ayaa ka hor yimid in tijaabooyinka gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi ay si toos ah u la xiriiraan dib u bilaabashada dowlad-tusyada ciidamada Mareykanka iyo Koonfur Kuuriya kadib 5 sano oo ay hakad ku jireen. dhinaceedana ku-xigeenka safiirka Ruushka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeysay xaaladda aadka uga sii daraysa ee gacanka Kuuriya rabitaanka Washington ee ah in Pyongyang ay ku khasabto inay kaligeed hubka dhigto iyada oo la adeegsanayo cunaqabatayn iyo cadaadis. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunaqabataynta waxa uu saaray Kuuriyada Waqooyi tijaabadeedii ugu horeysay kadib ee nuclearka sanadka markuu ahaa 2006, waxaana la sii adkeeyay sanadihii la soo dhaafay iyada oo goluhu doonayay inuu xakameeyo barnaamijka nuclearka iyo gantaalada balistiga ee Pyongyang. laakiin bishii May, Shiinaha iyo Ruushka ayaa hor istaagay qaraar adkayn lahaa cunaqabataynta gantaalada, tallaabadaasoo noqotay khilaafkii ugu horeeyay ee halis ah oo ka dhex dhasha golaha. kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay Khalid Khari ayaa ka digay in midnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee arrinta Kuuriyada Waqooyi ay tahay lama huraan haddii la doonayo in horumar la sameeyo. midnimada golaha ammaanka ee arrintan waa lagama maarmaan si loo yareeyo xiisadaha, looga gudbo ismariwaaga diblomaasiyadeed iyo xeyndaabka falcelinada taban, ayuu yiri Khari. laakiin falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in soo ifbaxa kala qaybsanaanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay fadhid ka dhigayso hawshiisa horaanba u adeegaysay dowladaha awoodda leh. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa waxa ay isku dhaceen Shiinaha iyo Ruushka oo ay ku eedeeyeen inay ka hortageen tallaabo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka qaadi lahaa Kuuriyada Waqooyi taasi oo ku saabsaneyd gantaalada balistiga ee ay sii hormarinayso Pyongyang. 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa ku guuldareystay inay isku raacaan inay si wadajir ah u soo saaraan bayaan ay ku cambaareynayaan tijaabada gantaalada balistiga ee ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. taasi beddelkeedana dalal dhowr ah oo ay ku jiraan Faransiiska, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa si gaar ah u dhaleeceeyay tijaabooyinka gantaalada ee Pyongyang. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan samaysay tiradii tijaabo ee ugu badnayd ee gantaalada ridada ah oo uu ku jiro gantaalka balistiga ee qaaradaha isaga gudba, taasoo tirada guud ee gantaalada ay riday sanadkan ka dhigaysa in ka badan 60 sawaariikh. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in 13 ka mid ah 15 xubnood ee golaha ammaanka ay Kuuriyada Waqooyi ku cambaareeyeen tijaabooyinka sii kordhaya ee gantaalada balistiga tan iyo bilowga sanadkan, balse waxay sheegtay in Pyongyang ay ilaalinayaan laba dal oo aysan magacaabin laakiin loo fahmi og yahay inay uga jeeday Shiinaha iyo Ruushka. labadan dal waxa ay ka weecdeen inay caddeeyaan xadgudubyada soo noqnoqda ee cunaqabataynta qaramada midoobay ay ku sameynayso Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kuuriya, ayay tiri danjiraha Mareykanka.
waxay awood siiyeen jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kuuriya waxaanay ku jeesjeeseen golahan ayay sii raacisay balse Shiinaha oo ah saaxiibka ugu dhow Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka oo uu xumaaday xiriirkiisa reer galbeedka duulaanka uu ku qaaday Ukraine dartiis ayaa kulanka qaramada midoobay ka sheegay in xiisadda Mareykanka kala dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi uu isaga eedeeda leeyahay safiirka Shiinaha ee qaramada midoobay ayaa ka hor yimid in tijaabooyinka gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi ay si toos ah u la xiriiraan dib u bilaabashada dowlad-tusyada ciidamada Mareykanka iyo Koonfur Kuuriya kadib 5 sano oo ay hakad ku jireen dhinaceedana ku-xigeenka safiirka Ruushka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeysay xaaladda aadka uga sii daraysa ee gacanka Kuuriya rabitaanka Washington ee ah in Pyongyang ay ku khasabto inay kaligeed hubka dhigto iyada oo la adeegsanayo cunaqabatayn iyo cadaadis golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunaqabataynta waxa uu saaray Kuuriyada Waqooyi tijaabadeedii ugu horeysay kadib ee nuclearka sanadka markuu ahaa 2006 waxaana la sii adkeeyay sanadihii la soo dhaafay iyada oo goluhu doonayay inuu xakameeyo barnaamijka nuclearka iyo gantaalada ballistiga ee Pyongyang laakiin bishii May Shiinaha iyo Ruushka ayaa hor istaagay qaraar adkayn lahaa cunaqabataynta gantaalada tallaabadaasoo noqotay khilaafkii ugu horeeyay ee halis ah oo ka dhexdhasha golaha kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay Khalid Khari ayaa ka digay in midnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee arrinta Kuuriyada Waqooyi ay tahay lama huraan haddii la doonayo in horumar la sameeyo midnimada golaha ammaanka ee arrintan waa lagama maarmaan si loo yareeyo xiisadaha looga gudbo ismariwaaga diblomaasiyadeed iyo xeyndaabka falcelinada taban ayuu yiri Khari laakiin falanqeeyaashu waxay sheegayaan in soo ifbaxa kala qaybsanaanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay fadhiid ka dhigayso hawshiisa horaanba u adeegaysay dowladaha awoodda leh